fanaanka weyne Axmed Saki oo kamid ah fanaaniinta qurba jooga ayaa waxa maanta lagu soo dhaweeyay airportka Cigaal International Airport ayaa waxa uu fanaanku ka waramay fanaan Axmed Saki dareenkiisa iyo inta uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa waxyaabaha uu qaban doono ay kamid tahay bandhig faneedyo kala duwan oo uu dhigi doono isagoo ka hadlayna waxa uu yiri waxaan leeyahay riyoonaya masawirun wallahi Hargeysa waxay ugu dambeysay anu reer Hargeysan ahaa waxay ugu dambeysay 10 sano ka hor asxaabteedii qaar badan baa caaway la jooga marka waxaan leeyahay Somaliland aad baan u salaamay Hargeysana wallahi waxaan dream Rio waxaan moodayaa inaan riyoonayo laakiin alxamdulillah wali maanta iyadoo rooban baa ilaahay igu simay aad iyo aad baan u salaamaya dhammaan asxaabta qaaliga ay ka soo qayb gashay markaad ooyido waa meel dhow laakiin markay oohina ka iman weydo wax xaalad adag weeyaan wallahi shacabkan wiilal iyo gabdho ilaa gudaha ilaa VIP-da aad iyo aad baan u salaamaya shacabka Somaliland guud ahaan gaar ahaan reer Hargeysa aad iyo aad baan u salaamaya insha Allah programna insha Allah waynu isku iman doonaa hadii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan u salaamaya waxaan salaamaya ciidamada qaranka Somaliland waxaan salaamaya madaxweynaha waxaan salaamaya golayaasha qaranka waxaan salaamaya dhammaan reer Somaliland oo dhan joognaa barnaamijyada dambena waan ilaa iida iyo wixii ka dambeeya heesa cusub Somaliland u soo wado qaaraan Hargeysa oo wado qaaraan Burco Boorama dhammaantood Somaliland oo dhan magaalo ugu wada insha Allah haday waxa lagu soo dhaweeyay Cigaal International Airport fanaanka weyne Axmed Saki oo in muddo ku maqnaa qurbaha isla markaana uga mahadnaqay bulshadeyntii aadka u soo dhaweysay waxaan ugu baaqay inuu sameyn doono bandhig faneedyo aad u qurux badan iyo waliba heeso ku dheehan tahay qaranimada Soomaaliland fiimayasiin Museho Cable TV